لكن waxaan doonayaa saddex qodob ayaan ka hadlo qodobka ugu horeeya waxa weeye Cabdi Khabiir waa kuma taas waa qodobka labaad waxaan si kooban uga hadlayaa deegaankana ku noolahay iyo raadku ku lahaa waxbarashadayda iyo hal kalmo dhiirigelina insha Allah dhalinyarta ugu horeysa aniga waxa la yiraahdaa Cabdi Khabiir Maxamed Axmed سامر عمر كحول سكوت وزنية وضياش ماشى بدي وقرنا أباها أبو محمد حجيم بو عنقوي على أمريكا عبد الخبير محمد أحمد إنه محمد حجيم بالليل أمريكا أباها أبو محمد حجيم باللونج أمريكا أوجينا عربت أوجا شكل بين مودانا أو قصاص كوجاي حجي كنا ناس بسكها هذا قبل بيحدون كيس بسكها هذا كعبد الخبير محمد أحمد وي ساسوها خلاص هذا أمريكا عزاي هوي waxaan u mikrofoonka ka maqlaysay nagama foga waxay tiri waxaan ku riyooday inantii aniga iga weyneyd malaayado caloosha ku jirta ayaa la igu yiri bay tiri uurkan ilmaha inanka ka dambeeya Cabdi Khabiir u bixi Cabdi Khabiir kadib culimadii bay u geysay culimadii waxay yiraahdeen waa Cabdi Khabiir saas Cabdi Khabiir igu bax Faysal markii wuxuu iga yimid anigu dadkii qaxootigii tagay baan ahaa Soomaalida ahaa xilliga 77 qaxootiga markii aan markaa tagay madrasadii iskuulkii magac Cabdi Khabiir qof la yiraahdo hal inan baan arkay iminka dhow oo nin wadaadaho awsiyaad la yiraahdo reejijiga yaan inaan u dhalay igu yiri waxaan la yiraahdaa Cabdi Khabiir oo aad ugu farxay cid kale ma arag kadib magacii kaliya ahaa yaan iska nacdo markaan iskuulkii tagay magaca sanqul Faysal baa la yiraahdaa halkaas oo Faysal iga soo raacay iskuulkii baan ku dhameeyay dhamaan waxa dukumeenti aan haystana Faysal baa ku wadaya أنا waxaan ku dhashay markaa haran ku dhashay qaybta soke ee farday harra dhaxdooda halkaas ku dhashay waan ku koray halka kadibna waxaan ahaa dadkii xilliyadii 77 wixii ka dambeeyay qaxootiyadii tagay daraasaadkayga hoose qaxootiyadan ku qaatay luqada carabiga waqtigii hore barashada Soomaaliya 6 bilood iyo 6 bilood bay 6 biloodna daraasi bay 6 biloodna fasax bay 6 bilood ee fasaxa reerahan imaanay dadkaanu yimaadeen aanu ido xakamida Sheekh Maxamed Farayare عليه من الله الجنة طول الله عمره بخير حكمها Sheekh Maxamed Sheekh Bashiir Hirade يا حكمها ريوي الوال dadkaanu yimaadeen aad uga faa'iideystay ku jiray ilaahay sheekh jannadiisa geeyay waa dhintay sheekhu iyo mashaakil la tuxsan waay dadka ii akhriyay kutubta xakamida sheekhina Sheekh Maxamuud Yare magaaladeenna degan qabri beex oo isagana alfiyaha jiska hore isaga ay aqri Sheekh Maxamuud kadibna halka markii daraasaadka hoose ku dhamaaday waxaan ka qaatay shahaadadii koowaad ee jaamacatul ulum wa teknolojiya waa Yaman bay ahayd Sheekh Maxamed halkiisa ma ahayn Yaman bay jaamacatul ulum wa teknolojiya waxaan ka qaatay degree diraasaad islaamiya kadibna waxaan qaatay diplom caali oo shahaadada ka sareysa digriga master sana ka hooseysa oo ah diplom caali jaamaca afriqiya caalamiga Suudaan oo ah education tarbiya usul tarbiya waxaan ka qaatay master jaamaca albitana والسودان education usul tarbiya waxaan ka qaatay PhD jaamaca albitana والدرا حيايد المناهج وطرق التدريس ومنهج كيو حبك وحبرستا حقيقة انت قدام بيسا بي اتش دي ده وحان دقي وحان ايربوت كخرطوم كدقي تضبية تنكي بشي اوغس او يمكن دافتي يعني ايربوت كخرطوم تسكاري هابين نمذي تضبية لباتنات بنوهيد خرطوم مشرفكي أما ننكي رسالة إلى ودي يا هوتيل كي يجي يمد يا دنيار سوماليات ما نتي تطبيق لباتنات واسكر نص ما نتي سيدي دي لباتنات يا أغسطس تطبيق دي الصبح نمو نقاشكو باللوذي نقاشكو معي ملا كتابكم ملانو يلا يجيب كتابكو واكر كتابكم دكتورة كو قاطي كتابك ينقري waxaa lagaaga bilaabayaa magaca inta diktoori aday ku weerarayaan
dhammaantooday ku weerarayaan waxay ka bilaabayaan magaca ugu sareeya meesha ugu dambaysay gaarayaan dooddu waxay socotay ama niqaashku 7 subaxnimo fadhiisanay 11 iyo badhkii baan kala kacnay hal mara hal shakhsi oo nagamidii suulimuu galeen marka hore laga dardaarmaya waxa la ninkii suuli baanu bismillah imka gal kadibna xilligaas bilownay 11 iyo badhkii ayaanu meeshii ka istaagnay annagoo mid walba u baahday in sare loo istaajiyo xaqiiqatan markii niqaashka dhamaaday iyagii baa soo jeediyay risaaladan ama niqaashkan in loo sameeyo xaflad isla jaamacatul bidaana waxay sameysay akbar xafla uqiima li risalati diktoora xafladii ugu weyneyd ee PhD loo sameeyo waxa qabtayeen jaamacatul bidaana رئيس قسم الشؤون العلمية دكتور محمد زين وحيد وحن عطسانينا مهما أي قليس كستنقو قادانيسو إن جامعة المعلن كان نقط هذا الذي يروح كمدها إن هذا لمن بقية الأولين هذا الذي يريد كمدها هيد خلاصة ذي برنامج كاس مسلسل كيسو انتاسا كفلا ويكفينا من الحديث رموها انت قبل الماء رسالة إذا هذا نصون نقد هي ديجان كنا نكون والله ما أنت والديجان النوع عيسى العرق الصومالي الوارق مركان رسالة القرية وحكوية الله ميكا بوجيجان مبحث أما قيب كهذا ليس علماء الصومال ودورهم في التربية علماء الصومالي ذي الدور كل عين تربية ده مركان قرية وحيابا ليابا يكون أركيين وحكم إذا 5 شيخ ولا لا 4 شيخ ولا لا ما هنا بومبونين أيو حتسوق هذا تا المشيخ إبراهيم مجن وضياش هكرنيه المشيخ إبراهيم مجن شيخ محمد شيخ إبراهيم شيخ حسين شيخ إبراهيم شيخ أحمد شيخ إبراهيم يا شيخ عبد الشيخ إبراهيم أفرت المشيخ إبراهيم مجن بهاي أفرت ولا لا هاي أفرت هو الشيخ هاي مركز سوق هذا تو مشايخ ذي غير وهذا هبل مالي مركز سوق على تو مشايخ ذي غير ورفع هبل مالي يعني دول كوحوها ديجان يعني حديدات دير كله أما أعجوبات الليابة لبوا يعني أنت صار شيخ إسرائيلي أنت صار شيخ إسرائيلي أنت صار شيخ ولا لا أرين عجيبين وعلى الليابة كله مركز قري علماء الصومال مشايخ ذا أنا لك كل مية كل جود وحي كدر سذين علمك ديجان كانت كنوجين شريف عبد النور أو أبيب ماشو كوا قرسني أو أبيبي شيخ يسا كواد شيخ حسن مريحان بوا شيخ حسن مريحان دي شيخ حسن مريحان مقع سوكا يريو شيخ حسن مريحان هذا لكن هو يدي يهو يكيسبه ريح الديد بها يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي ورقي يا لي مركز دركتو شيخ محمد معلي حسن نفسه هبل مالي شيخ كستون لكل مو أما الديجان كاسو أدلني أما الديجان كاسو تشرب من ديجان كوا ديجان سدان ما أنت وحنا هذا قد عيانو كليده يا شيخ حسن شيخنا الشيخ حسن كيرو نافع ميلانو فدي أيام سؤالان دور سؤالات بنويدي وحن لا يابي نينكاسي كتاب لبد مادان ويديي مادة النحو العربي هي مادة مصطلح الحديث نينكاسي سدو أولقمي بير كان كقصلي كاسر شيخ يدعي إلهي شيخ حسن بركاي حلقة دي سنة بركاي شعب سيبراهيم علماء أوردن إنه جوكت الله بركاي رنتي وحين النهي ديغان يستحق أن يفتخر به ديجان مدني اللي قفار بيننا وحضر كيسان ديجان ماذا أنا مجعابين كمذا أيها وحنين كويري حداد إيه كنتو أفرتنجر أبي شيخي يعني وحاسم بحناي أفرتنجر ويدعي كرتامان تلبا ديجان كستو سوماليا إن لقاه ولا لا تنجر أبي شيخي لكن وياها وحنيري أفرتنجر أبي شيخ يكين وفعله سوى هذه أنا غير سوى يدور لكن ما أنت
مشايخ ذا إنه لهين إيه عرقي إنه دين كلهين وارين عجيبة إلهي وحن كبريا إنه مفخرة ذا إنه دائميو إلهي تاسن كبريا وحقولون دين شيء شيخ عبد النور هذا لويل إلهي بركيه شيخ عبد النور روحوا ضدك الله أورنكرو ومخترع وحجر واحد هذا براءة اختراع شهادة اللي لابد عالميا براءة اختراع وحوي وشهادة روح بالله الدول كل ما يلنكرو مثلا لك عاجة هذا ضص ما يصير لسان هرله وضدك أذوق أتكلم هذا سبيزته وحلقوا سيني يا شهادة اللي هذا شرع براءة اختراع يمكن واحد كسوقات السران intii bay dawo loo waayay oo dawadii la helay ninka soo saaray dawada tiibayda waxa la siinayaa shahaadada baraat ikhtirac cid lama samaysan karto Karashov ninkii qoriga akayga sameeyay cid kasta oo akay sameynaysa waa inay isaga iidan weydiisataa iyo cid uu ku awood siiyo Abdunuur Sheikh Abdunuur iyo Sheikh Abdul Qaadir iyo rag la midkii iyo Sheikh Sulub oo dhabarkayga taaganayo waa rag mudan maanta quraanka qabri bayciyaala in baraa'atu ikhtirac la siiyo yay mudayin Allah barakeeyo intay bareen Allah barakeeyo inta garab istaagteen Allah barakeeyo runtii hadalkiisi waxa kamid ah daarada dheer in laga tago inankaaga uga tagto macna mare psychology wuxuu yiraahdaa inankaaga shantaada inaad shan daarood uga tagto waxa ka qiimo badan inaad kiiba shahaado uga tagto waxaan ogahay maanta ganacsato Soomaaliyeed kulligiin taqaanaan inaan sheegama doonayo in la sheegana macna male oo kulligiin waa taqaanaan aabahood baa dhintay